kadib kula ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya oo magaalada Dhuusamareeb kula yeeshay madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagraan iyo xubno ka tirsan golaha wasiirada ayaa waxa warbixin kuga dhageystay xaaladihii ugu dambeeyay ee fatahaadihii webiga Shabeelle uu ka geystay degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose kuwaasoo saameyn ku yeeshay sida ay ku sheegeen warbixinta Koonfur Galbeed in ka badan 6,000 oo qoys. Ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaa warbixinta kadib waxa wasaaradda maaliyadda faray inay bixiso $500,000 oo doolarka Mareykanka oo ay dawladdu ugu tala gashay in lagula tacaalo ama wax lagu qabto dadka ay saameynta ku yeesheen fatahaadda webiga Shabeelle ka sameeyay degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose. wasiirka maaliyadda ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle oo kulanka kadib la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in wasaaradda maaliyaddu ay sida ugu dhaqsiyaha badan ay u bixinayso lacagtaasi si wax loogu qabto dadka ay saameynta ku yeesheen fatahaadaha webiga Shabeelle ka geystay degmada Afgooye. Bismillahir Rahmaanir Rahiim. Waxaan ka soo baxnay shirkii madaxweynaha Koonfur Galbeed iyo ra'iisul wasaaraha oo runtii ay ka wada hadlayeen arrinta duufaanada iyo fatahaadaha ku dhacay Afgooye taasoo dhibaato weyn keentay. Ra'iisul wasaaruhu wuxuu ka muujiyay arrinta inuu aad iyo aad uga xun yahay. Waxaana uu ku ballan qaaday $500,000 oo doolar in loogu deeqo dadka meesha degan ee dhibaatadu soo gaadhay iyo hataa fatahaadaha sidii wax looga qaban lahaa ayuu ku baaqay. waxaan isku dayaynaa arrintaas inay degdeg u suura gasho degdeg loo sameeyo. waxaa kaloo ilaahay aan ka baryaynaa daadadkaas inay khafiifaan. meesha waxaa ku jirto kale daadadka mar walba imanaya in loo doono si dhibaatada looga hortago aanay dib u soo noqon. iyadana arrimaheeda waa lagu jiraa mashaariic kale ayaa imanaysa oo fatahaadaha webiga sidaa uu soo fatahayo lagaga hortago oo agagaarkiisa la xidho oo la hagaajiyo baa lagu talagalayaa. laakiin maanta waxa aan aad iyo aad uga xunnahay dhibaatooyinka dadka soo gaadhay ee deegaanada soo gaadhay dhismayaasha soo gaadhay dhismayaal badan baa burburay baa la yidhi. marka ra'iisul wasaaruhu $500,000 buu ku ballan qaaday sidaan idhi insha Allah ilaa berrito waan dhammayn doonaa waanan hirgelin doonaa ilaa berrito way gaari doontaa meesha loo. madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagraan oo dhinaciisa warbaahinta la hadlay ayaa dowladda federaalka gaar ahaan ra'iisul wasaaraha uga mahad celiyay sida degdega uga jawaabay baahida ay qabaan dadka reer Afgooye. runtii meeshaas waxaa ka dhacday dhibaato xoog badan iyo barakac saameeyay ilaa iyo 6,800 oo qoys ay ka baxaan guryahooda. waxaan rabnaa marka dadka Soomaaliyeed dadka reer Koonfur Galbeed iyo nin kastoo Soomaali ah oo waxaysto inuu walaalihiisa u gurmado dadka reer Afgooye loo gurmado. dowladda federaalka waxaan uga mahad celinaynaa gurmadkii ay noo sameeyeen ay u sameeyeen shacabkooda iyo dadka reer Afgooye. lacagtii $500,000 ahayd oo ay ku deeqeen dowladda federaalka ra'iisul wasaaraha iyo wasaaradda maaliyadda iyo dowladda oo dhan waa uga mahad celinaynaa. waxaan kaloo rabnaa haddii ilaahay yiraaho hay'adaha caalamiga ah iyo dowlad goboleedyada iyo shacabka Soomaaliyeed oo dhan inay u gurmadaan dadkaas dhibaataysan oo biyaha ku dhex jiro oo jiif la'aanta ah cunno la'aanta ah meelay istaagaan la markii taas laga gudbana in loo helo xal waaro si uusan u soo noqonin fatahaadda ayaan codsanaynaa. annaga haddaan nahay dowlad goboleedka Koonfur Galbeed deegaankaana iyo Shabeellada Hoosena ay tahay meesha dhibaatada ay ka dhacday waxaan u taagannahay waxaan haynoo dhan iyo xooggaanaga iyo taladaanada iyo aqligaanaga aan isugu geyn doonaa dowlad iyo shacabo in dadkaas reer Afgooye loo gurmado iyo dadka kale oo eeriyada degmada Afgooye degan oo ayagana dhibaatada ay gaartay inaan u gurmano u istaagno. marka sidaas darteeda cid kasta oo gacan ka geysan karto waxaan rabnaa dadkaas ilaa iyo 7,000 oo qoys gaarayo 6,800 oo qoys